sheekh xilliga imaamka uu ducaynayo maalinka jimcaha waa xilliga khudbada dhexdeeda gacmaha kor ma loo taagi karaa iyadoo la aaminsanayo maya imaamkuna markuu ducaynayo gacmaha ma taagi karo dadka ma'muumiinta ee dhageysanayana ee ducada dhageysanayana gacmaha ma taagi karaan aamiin afka ma ka dhihi karaan baa la isku haystaa gacmo taag xaggee joogaan marka gacmaha lama taagi karo xilliga uu imaamku khudbada intuu dhammeeyo uu ducaynayo ama dhexdeedaba ku ducaynayo ayib waxaa jira fi saxiixi muslim iyo abu daawuud sunankiisa waxaa ku yimi xadiid cumaarata bna ru'ayba nin la yidhahdo warinayo wuxuu arkay nin la yidhaahdo bishr ibnu marwaan oo mimbarka saaran abu daawuud wuxuu ku daray jumcad dhexdeedana khudbaynaya isagoo jumcada khudbaynayu mimbarka saaran yahay labada gacmoodna taagay ayuu arkay markaasaa wuxuu yidhi qabbaxa allahu haatayni alyadayn labadan gacmood allaha fool xumeeyo allaha kharibo labadan gacmoodee kor u taagan maxaa yeele laqad ra'aytu rasuula allahi sal lla alay wasalam maa yaziidu cala an yaquula biyadii haakada wa ashaara biisbacihi almusabbixa waxaan arkay buu uhi nebiga oo mimbarka markuu saaran yahay oo farta la yidhaahdo murugsatada ama farta wax lagu fiiqo fartaa kor u taagayaan arkay buuhi nebigu markuu khudbaynayo fartaasuu kor u taagi jiray buuhi markuu ducaynayo markuu khudbaynayo laakiin labadan gacmoodee uu ninkani kor u taagahay gacmahaaga allah kharibo buu ku yidhi maxaa yeele sunnadii nebiga khilaafsan yahay waa imaamkii waa haddii imaamkiisusan taagi karin ma'muumiintuna waa la mid sidaas daraaddeed baa nabigeennu sal lla lay waslam xataa saxaabadiisu ma taagi jirin sida xadiidka uu tilmaamaya anas bnu malikin radia allahu tacala canhu wa ardaah hal mar baa la hayaa ayagoo dadkuna taageen nebiguna taagay sal lla lay wasalam markaana waxay ahayd waa ducada roobtoonta ee khudbada dhexdeeda lagu roob doono hadduu imaamku markuu inoo khudbeeyo kadib ducadii roobdoonta uu duceeyo markaa isaguna gacmuhu taagi dadka dhagaysanayana gacmahay taagi karaa xaaladdaa iyadaa way soo aroortay waxaana tilmaamaya xadiidka anas bnu malikin radi allahu tacala canhu fi saxiixayn wuxuu yidhi nebiga nin acraabiyo reebaadiyaa u yimid rasuulkuna sal lla lay waslam maalin jumco ah mimbarkuu saaran yahay khudbaduu akhrinaya markaasuu wuxuu ku yidhi intuu istaagay yaa rasuula allah halakat ilmawaashiya xoolihii baaba'e abaarta jirta xoolihii waa baaba'een buuhi halaka alciyaalu halaka annaas ciyaalkii waa rogmadeen dadkii baaba'e wax ma laabna ee duceeyo ilaahay roob noo weydii farafaca rasulu llahi sal lla alay waslam yadayhi yadcuu warafaca annaasu aydiyahum macahu yadcuun markaasuu nebigu gacmihiisa kor u qaaday isagoo ducaynaya dadkii khudbada dhagaysanayeyna iyaguna gacmahoodii bay kor u qaadeen iyagoo aamiinsanaya waay oo aamiin leh marka xaaladdaa hadday ducada roobdoonta tahay khudbada dhexeedana ay tahay imaamkuna gacmuhu taagi karaa dadkuna gacmahay taagi karaa laakiin hadday tahay ducooyinka kale iska caadiga ah ma sugna inuu nebigu gacanta taagi jiray sal lla alay wasalam bal waa kaa ninkaasi ay ku diideen saxaabadu ridwan ullahi calayhim hada billahi tawfiiq